iyadoo lagu yiri kuma rabo oo telefoonka laga bloktay oo dhaqan kasto qofka bini aadamkaahi uu ku quusto midba midka uu ka xun yahay lagula dhaqmay si la isaga kaareebo ma is aragtaa weli adigoo leh qofka ma ahane qof kale ma jecli mushkiladda ku haysata ma fahmi kari laadahay. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu dhammaantiin walaalahay isku soo noqod wanaagsan. maanta mawduuca miiska ii saaran waxaa la yiraahdaa isu noqo adigu wixii cid kale ay ku noqon weyday. sida caadiga qofka bini aadamkaahi ma dhargo baahiyana kama dhamaato. mar walba oo aad istiraahdo malaha waqtiga nolosha ugu dheregta badan tahay, ugu barwaaqada badan tahay, ugu farxadda badan tahay, waqti ay kaaga fiican tahay taariikhda kumaba soo marin, ba waxaad arkaysaa naftaadu iyadoo weli u sii hanqal taagaysa intaa ka badan. marka qofka bini aadamkaahi baahidiisu ma dhamaato. haddii si walba aad naftaada iska badaacid kale aad dadaal naftaada ugu bixiso oo si walba u shaqayso oo si walba u tabacdo oo si walba dhabarka isaga jabiso oo kabuhu kaaga dhamaadan, weli naftaada waxaad heli doontaa iyadoo baahi kale ku sii hayso. marka caadada bini aadamku ay leeyihiin iyo sida adduunyada loogu talagalay baa sidaas. laakiin haddii qofka la weydiiyo la yiraahdo maxaad u baahan tahay, baahida afka uu ka sheegtaa labay la xiriirtaa, ama waqtigan hadda maanta uu joogo ama mustaqbalka. baahi kaloo waxaa jirta laakiin qofku markuu keligii noqdo gooni uu yahay, sida dayn lagu leeyahay kala qalbigiisa ugu taagan. baahidani waa baahi caruurnimo. qof kastoo ina ka mida oo maanta aan daryeel waalidnimo soo helin, naxariis iyo kalgacal aan soo arkin, laga yaabo nolol liidata oo silica oo dacdarraa ku soo koray, qalbigiisa waxaa jirta meel maqan oo maran oo faaruqa. waa meeshii hooyo iyo aabe kalgacalkii iyo wanaagii iyo korriimadii iyo naxariistii loogu talagalay inay iyagu buuxiyaan. marka uu baahi ka qabo, waxaa jira dad badan oo maanta koray, danahooda ay qabsadaan, way shaqaystaan, noloshooda iyaga isku filan, ugama baahna waxa ilmaha yari uu waalidka uga baahan yahay maanta waalidkood. laakiin haddana waxaa jirta dhaawac qalbiga kaga yaala oo ay dareemayaan. xaalada laba ahna way keeni karaan, oo waxaa dhici karta in waalidka duruufo iyo xaalado ka tambatay, ka xoog batay, meel ay ka maraan aysan jirin, in ay idin kala geeyeen oo sababta aad u weyday ay taa tahay. waxaana jirta xaaladaha qaar in hooyo aabba aad la nooshahay, adoo la noolna baahidaa qabay, maanta waqtigan aad joogtidna su'aalo weli iska weydiinaya. waana dad badan bay qalbigooda xanuun ku haysaa oo waxay isweydiiyaan, laga yaaba inaad aragtay hooyo inay kaa jeceshahay carruurta kale, ama aabbo inuu kaa jecel yahay carruurta kale. su'aalaha aad naftaada weydiinaysaa xanuun badan bay adiga kugu hayaan. cid kaaga jawaabi karta oo jawaab waafiya kaa siinaysaana ma jirto. haddaba marka maxaa kula gudboon marka qalbigaad saa xanuun uga dareemayso? midda koobaad ee marka kula gudbooni waxay tahay in aadan waalidkaa la xisaabtamin. dad badanoo waxaa jira marka ay waalidka duruuf ku helaan, oo gabadhu ama wiilku waxaa laga yaabaa in masruufka hooyadii iyo aabbihii uu maanta gacanta ku hayo, isagaa shaqeeya, wuu biilaa, ama dibaduu joogaa, ama magaaladuu joogaa, ama waddankuu dhinac kale ka jooga, waxay doonto ha noqoto. maanta masruufka uu hooyadii iyo aabbihii siiyo isagaa gacanta ku haya. markaasoo kale waxaa dhacda mararka qaarkood in ilmuhu ay waalidka la xisaabtamaan. horta hooyo waxaan ku weydiinayaa, maxaad hadda ka hor sidaa ii tiri? hooyo waxaan ku weydiinayaa, maxaad ilmaha kale iga jeclaan jirtay? hooyo ilmihii kale ee aad iga jeclayd soo kuwan maanta sida xun kuula dhaqmaya? aabbo horta kaale maxaad ii dili jirtay? aabbo horta maxaad hadallada noocaasa ii oran jirtay? il gooniyaad aniga igu fiirin jirtay. ha la xisaabtamin waalidka. xag ilaahay baa noloshaada rabbi kaa daaweyn doona, baahiyaha aad qabtid baa rabbi kaa dabooli doona. dad badan baa marka xal mooda inay hooyadii iyo aabbihii oo maanta da' jooga, oo laga yaabo inay adduunyo in badan oo ka mida dhibaatooyin fara badan soo maray, lagaba yaabo inay daal adduunyo iyo maaragtay cimrigan ay hadda joogaan ay qabaan, in uu xisaabtan ugu daro oo uu markaa qofku soo xusuusiyo wixii waalidku, dee caqli buu lahaa waalidku, ma ahayn ilmo yar. waxa uu samaynayo, sababaha uu u samaynaya qalbigiisa cid ogeyd ma jirto. marmarka qaarkood baa waalidku waxyaabaha ay adiga kuu khasbayaan oo hawl kuugu dirayaan oo kuu cadaadinayaan ay tahay kalgacalay kuu qaban. laakiin inagu ma aragna markaan yarnahay inay kalgacal inoo qabin. maanta naftaada fiiri, haddii hooyada ay cadaadis badan ku soo saari jirtay markaad yarayd, ama aabbaha cadaadis badan uu ku saari jiray markii aad yarayd, waxaan kuu hubaa kuwii aan cadaadiska la saari jirin meel aysan gaarin baad maanta adigu joogtaa. hana mudin meesha inaan ka saarayo raadkii iyo saamayntii kharaaraydii xanuunka badnayd ee taasu kugu reebtay way jirtaa.
laakiin waxaan rabaa inaan dhan kale kuu soo jeediyo waayo meelo kale oo noloshaada ka mida maanta da'dan iyo wakhtigaad joogtidna aad muhiim kuugu ah oo taasu ay saamayn ku leedahay baa jirta meelaha muhiimka ah qofka noloshiisa ay saamaynta ku yeelato waa markay noqoto dhinaca haasaawaha tusaale ahaan gabar baad la socotaa ama nin baad la socotaa ama dadka aad asxaabta la tahay una fiirsa middan marar badan ma aragtaa in aad gabar jeceshahay hase yeeshee adigu aad baad ugu wanaagsan tahay waad u naxariisanaysaa ama nin kuu doono ha noqdo labada dhanba way aadi kartaa laakiin qofkan isagoo ku xumaynaya oo xumaan meeshii ugu dambaysay kugula dhaqmaya oo ku khiyaanaya oo hadal xun kugula hadlaya oo telefoonkaa ka soo jawaabayn oo xaalado badan ku baloogaya waddo kastoy macquul tahay qofka bini'aadamka in la isaga reebo way kuu marayaan haddana waxaad adigu naftaada aragtaa inaadan maarmi karin qofkan ma ahane cid kale oo kuu muuqataa ma jirto saaxiibada dhanka kale waad wanaajisaa wanaag badan baad kula dhaqantaa markay caawimo kaa rabaan waad caawisaa markay hadal wanaagsan kaa rabaan markay garabkaaga bahdaan hiil iyo hoo kaama waayaan hadday murugaysan yihiin waad la murugootaa adigu mar walba mas-uuliyad baad moodaa gooni ah inay ku saaran tahay laakiin labada dhankay doonta ha noqotee qofku waa isdhiganayaa wuxuu doonuu samaynaya siduu doonu u dhaqmaya arxan iyo naxariistoonna kuuma hayo iyadoo ay saas taho afka ay kaa garaacayaan baad haddana ku dhegantay qalbigaaga oo jaban adoo murugaysan adoo ilmaynaya adoo la il iyo tabar daran qof bini'aadama dhaqan uu kugula dhaqmaya dartii baa haddana qofka aad dhibkaa ka dareemaysid ba waxaad arkaysaa naftaadu adoo weli ku dheggan ma isweydiisaa marka maxaa kaa khaldan haddaba middan u fiirso micnaheedu ma ahan inaad qof xun tahay inaad saa dareemayso waa xaqiiqa jirta laakiin mid samee kow marka ugu horraysa in arrintaasu ay jirto ayna dhacday wakhtigeediina la soo dhaafay horta aqbal waa qayb weyn oo ka mida sidii aad boogtaa qalbigaaga ku taalla u dhayi lahayd daawadu waxay ku jirtaa kow inaad aqbasho 2 in wax laga bedeli karaa aysan jirin 3 maanta wanaag iyo naxariis iyo kalgacal inay waalidkaa kaa mudan yihiin aan u soo noqonno marka noloshaada dhinacyadeeda kale ee muhiimka ah tusaalahaan markay noqoto dhinaca jacaylka sababta aad qof uga foqi laadahay waxay tahay maadaama yaraantaadii aadan waa ku jeclahay iyo koolkooliska iyo naxariista aadan soo arkin qof markaad aragtid ku koolkoolinaya oo koranaya waa ku jeclahay oo subaxii ku soo wacaya oo ku soo raadinaya waa wax yaraantaadii aadan horay u arkin tan ma ahan wax ku eg hal qof kaliya waxaa laga yaabaa xiriirka koobaad kan labaad kan saddexaad kan afaraad kan shanaad kan lixaad weli waad ku dhigantay qof walbood aragtidba waxaad moodaa bini'aadamku yidhahdo waa ku jeclay noloshaada inaadan soo arkin sababta keenaysa inaad qofkan ku dhegto ood ka fuqi weydo meesha waxaa dhici karta qofku inuu iska baashaalayo wuxuu doonuu sameeya meeshuu doonuu aadaa noloshiisa waxba inaysan ka qasnayn baad moodaa meesha adigu cuntadii aad ka gooday oo sariir saaran tahay oo habeenkii odhada dhafarsan tahay oo murugo jirkaagii dhab uu qayirmay waad isbeddeshay adiga qalbigaaga qaybta runta kuu sheegaysa waxay ku leedahay maxaa kaa khaldan qofkan sidan xun kuula dhaqmaya ma keligiisa adduunka ka jooga ma xalaal baa horta isu tihiin qofkan miyuu ku qabaa gabadhan miyaad qabtaa macnaha qalbigaagu wuxuu ku tusayaa xaqiiqooyinka jira laakiin haddana qayb kaloo qalbigaaga ka mida isagaa 2 u kala qaybsan oo waxaa jirta kan kale la doodayso ka xoog badan marmarsiinyo iyo cudurdaar iyo qiilal qofkan akhlaaq xumadiisa iyo dhaqan xumadiisa iyo liidashada qofkani sida uu kuu liidayo kuula dhaqmayo oo qiil bixinaysaa jirta intanaa wakhti ku soo bixiyey hadal wanaagsan buu igu yidhi hadal wanaagsan bay igula hadashaa maalin bay cunto macaani siisay maalin buu hadiyad qurux badan qofkani ii keenay ma qofkii sidaa ii sameeyey laakiin haddana wax walba oo qofkaas kuu sameeyeyba waxaa mar walbaba keenaya qofka maahana dafirto qofka wanaagii uu kuu sameeyey laakiin haddana waa in aad 100% xooggaaga saartid oo aadan u ogolaan qofna inuu si xun kuula dhaqmo midda kale ee qofka noloshiisa saamaynta xooggale ku yeelata ahna wax yaraantiisii ka soo raacay sababna ugu noqdo marmarka qaarkood in meelo muhiima noloshiisu ay dumaan isaguna naftiisa uusan ogeyn lana silco lana rafaado waa marka ilmuhu isagoo da'yar mas'uuliyad loo dhiibo meeshan u fiirsada in mas'uuliyadda la baro iyo in loo dhiibaa labay kala tahay marka laguu dhiibayo waa ku qasban tahay tusaale ahaan gabar baa 8 sano iyadoo jirta carruurta ka yaryaroo dhan iyadaa loo dhiibaa hooyo waa dhashaa iyada unbaa korisa way fiican tahay gabadhu sida guriga loo hagaajiyo ilmaha loo koriyo inay barato ma xuma cuntada sida loo kariyo in gabar kastaaba ay u diyaar garowdo dumarnimo iyo berri inay xaas noqon doonto carruur ay dhali doonto mas'uuliyad ay qaadi doonto way fiican tahay
laakiin tan aan ka hadlaya waa mid lagu qasbay. hooyo waxaa laga yaabaa inaysan shaqo aadin, aabba reerka dabara, laakiin hooyo mas'uuliyaddii iyadu ay lahayd bay waxay u dhiibaysaa gabadha tan yaray dhashay. waxaa dhacda mararka qaarkood in gabadhaa weyne aysan waxba baran. gabdhaha ka yaryar iyo wiilasha ka yaryari inay qur-aanka dhammeeyaan, inay waxbarashadooda dhan dhammaystaan. waxbarashadii iyadaa ka warqabta, mararka qaarkood bay xataa iskuulkii aadaysa oo dugsigii qur'aanka aadaysa. hooyada ilmaha dhashay maahan hooyo xun, ujeeddadeedu waa gabadhaadu waxa barato oo dumarnimo u diyaari, oo dhabar adayg mid leh ha lahaato, oo beri reerkeeda ha dhaqato. laakiin dhibaatada ka dhalataa waxay tahay gabadhan yari, waana mushkiladdu meeshay ku jirto ee laga yaabo dumar badan inay guryahoodii noloshooda saamayn ku yeelato. tani waxay tahay ilmahan ka yaryaree tirada badan, inta badan iyadaa u madaxa, hooyo aabba madaxu maaha, iyadaa u madaxa. halkaa ha aadin, waryaa soo noqo, fariiso, carkac, maanta dhantaasay ku jirtaa. yaraanteedii kontaroolkii ay baratay ee ku soo kortay baa hadhowdii wuxuu noqdaa shay ay la timaado guriga berri ay dhisan doonto. gurigan marka ninkan ay isguursadeen bay waxay isku dayeysaa marka inay kontaroosho. waxaa ha samayn, halkaa ha aadin, sidaa ha samayn, waxaa ha qaban, soo saa kuma dhihin, maxaad aniga kaale horta ii dhegaysan laaday. taasaa marka ninkii marka dambe wuxuu odhanaya inaadeer wax ma kuu sheegaa, kontarool in la kontaroolo diyaar umaahiye. hooyadayba kama soo arag kontaroolkan, waalidan iskulama joogayno. inta badanna halkaa kuma ekaanayso, guurka iyo kan ku xiga iyo kan ku xiga iyo kan ku xiga saasay ku soconaysaa. inta badanna dumarkaas uma baraarugaan. waxaa keenayana maxay tahay, kontaroolkii yaraanteeda ay ku soo bilowday bay rabtaa cid walba inay kula dhaqanto. shaqo hadday tagto sidoo kale, iskuulkay joogto, dadkay saaxiibada la tahay sidaasoo kale, waxay rabtaa inay hadalka ay mar walba lahaato. qofkiibay waxay leedahay waxaa iska daa, oo waxaa maxaad u samaysaa, oo dadkiibay afaarahooda dhex gelaysaa. mas-uuliyad bay iska saaraysaa cid walba. ragguna sidoo kale, baadiyaha markii la joogay ama magaalada, nin waxaa laga yaabaa in isagoo da'yar aabbihii shaqadiisii iyo hawlihii uu maaragtay inuu aabbihii u shaqaynayay, tusaalahaan ama garaash ama dukaan, waxay doonta ha noqoto, aabbuhu inuu intaa adeegsanayo mas-uuliyad u dhiibayay. ama waxaa laga yaabaa carruurta walaalihiisa in looga dhintay, ama waxaa dhici karta aabbihii hooyo inay ka fogaadeen oo uu mas-uul ka ahaa carruurta. kontaroolkaa yaraantiisii iyo mas-uuliyaddaa saarnayd buu wuxuu rabaa marka hadhow inuu la soo dhex galo dadka kale ee nolosha caadiga ku soo koray. isma keenayaan marka. dhibaatada keenaysa inay iska hor yimaadaan mar walba qofkani wuxuu rabaa inuu hoggaanka hayo, taasuna ma suurtagelayso. guri kasta oo dhisan sida guud ninkaa hoggaanka haya waa sax, laakiin haddana waxyaaba la isku dardarsadaa jira, waxyaaba la isdhaafsadaa jira, waxyaaba talooyin oo la kala qaataa jira, waa la ismaqlaa, kala dambayn baa xoogaa jirta, meelaha qaarkood baa la iskaga haraa. dadkani ma yaqaanaan inay haraan, ama taydaa socon ama aynu isdayno, sheeko kale maba jirtaba. kontaroolka marka yaraantaada aad ku soo kortay baa waxaa dhici karta in dadka kale aad ula tagto, taasoo saamayn adiga kugu lahaata. dadka kalena laga yaabay inaad saamayn ku lahaato, ilmahaaga laga yaaba inay saamayn ku lahaato haddii aadan kontaroolkaa joojin. waayo kontaroolkaasu ma fiicna, inaad qofka every aspect of his life aad tiraad waxaa ma samayn kartid, waxaa ma qaban kartid, saa haddaad yeeshid anidu waa kala tegaynaa. inta badanna kalsooni kuma beerna dadkan, waayo yaraantoodii oo dhan hawlihii ay qabanayeen iyagaa loo xil saaray. cid kale oo ay ku kalsoonaayeen oo ama kalsooni kuba abuuri lahayd ee hawl la qaban lahayd ama ay waxu dhiibi lahaayeen ma jirto. ilmo yaryar oo uu soo koriyo qofkaasu, ama mas-uuliyadda yaraantiisii loo dhiibiyey xilkaa isagu uusan lahayn qoorta loo suray, booskii waalidkee uu ku jiray, baa sabab waxay ugu noqotaa berri markuu reer dhistana in gurigiisa uu kaga dumo. waayo mayaba ma maqli karaan, waa ku xajiimoonayaan. maya haddii la yidhahdo dhiiggaa 100 tegaya, maxaa aniga la ii dhegaysan la'yahay. inta badanna qofka ay nolosha la wadaagaan wuxuu u arkaa qofkani inuu qof kibir badan yahay, laakiin kibirka ma ahan, ee noloshiisa yaraantii wixii uu ku soo koray. marmarka qaarkood baa laga yaabaa nin inaad aragtay, ama ninka ku qaba ama gabadhaad qabtay, kay doonta ha noqotee, qof walaalkiisa ama walaasheed ama walaashiis, kay doonta ha noqotee, qof koray oo danihiisa iyo noloshiisa raacday baad arkaysaa isagoo wacaya, waxaa ma qabatay, waxaa ma samaysay, ama gabadhu iyadoo leh ninkaas miyaad shukaansataa, bal ninkaa shukaansatay soo bar, bal aan kaa fiiriye. mas-uuliyad waa hore wakhtigeedii expire noqday bay weli iyagu daba taagan yihiin oo saaran. tanaa noloshooda u diidaba xataa inay wax qabsan waayaan bay sabab ugu noqotaa, waayo qof kaleba intaa mas-uuliyaddiisii dareemayaan inay saaran tahay. haddii marka qofku uusan ku baraarugin oo uusan naftiisa wax baranin, waayo booskii hooyo aabba kuu geli waayeen, waa inaad maanta adigu naftaada u gasho. aqoontii aad shalay weyday maanta adigu raadi.
hadday noqoto diin, hadday noqoto maadi, hadday noqoto xirfad, qof wax akhriya oo wax barta oo naftiisa la dadaala adigu maanta noqo. haddii yaraantaadii naxariis, kalgacal, koolkoolin, ciyaar aadan soo helin, adigu naftaada maanta sii. kontaroolkan haddaad aragtid inay naftaadu dadka kontaroolayso oo rabto cid walbaba inay afaarahooda ku jirto oo meel walba jacba kaaga dhagaysa, oo qof walba wuxuu ku leeyahay maxaa la daqdaqleeda kusoo dhexgeliya afaarahayga, waa adigaba adaa iscaabsanaya marka dambe. haddaad isku aragtid qof kontarool badan in aad tahay, ogow caruurtaadii xataa saamayn ku lahaanaysa. caruurtaadu maalintay koraan baad afaarahooda ka dhammaanayn. yaad shukaansataa, yaad la socotaa, gabadha taniyay ahayd, middan sidan u eg, wiilka saa u eg, naa maxaa ku daba dhig, kontaroolkaasaad weligaa ku jiraysaa. micnaheedu ma ahan inaan meesha ka saarayo waalidnimada, inaad qofka ilmahaagu qofka uu guursanayo inaad fiirisid maaha inaan kuu diidayo, laakiin in aad noqoto qof wax walbaba farta gelinaya oo isku dayaya cid walbaba inuu juqeeyo, qof walba wax ka sheego, qof walba in u raadiyo. dadka badankoodu qofkan markay arkaan waxay moodaan qof kibir badan inuu yahay, laakiin ma kibir badna. qofkan dhaqankiisa iyo caadadiisa sidaa noqotay. hadduusan isagu isku baraaruginna, waayaha adduunyadu in badanoo ka mida way ku silcaan oo way ku rafaadaan, oo dadku marka dambena eed baa ka soo harta. dadku waa xun yihiin, qof wanaagsan ma jiro, adduunyadu dhan waa khariban tahay, maanta wax la guursado male. haddii xataa qofkaasu waxaana ugu daran, qofkaasu markuu nolol la galo qof isaga la mid a, adduunka reerka ilaahow kii roon u reeb baa ka dhacaysa. labadaasu heshiis iska daayay, stress bay kala qaadayaan oo isku waalanayaan. waxyaabaha marka badi maanta guryaha xataa haysta, ama haasaawaha laftigiisa, gabar waxaad arkaysaa nin aan qabin bay waxay leedahay, oo maxaa ninkaa ula joogtay, oo kuwaa maxaad u aaday, oo halkaa maxaad u taagneed, oo halkaa maxaad ka qabanaysay. markaasuu ninkii wuxuu leeyahay inantu mawaalan tahay. waxaa laga yaabaa sidoo kale ninku inuu isaguna sidoo kale noqdo, halkaa maxaa ku taagay, gabadhaa ha la soconi, sidaa ha samayna. hadda labadoodu xaaraan bay weli kala yihiin, xalaal isu maahan. waxyaabaha marka kontaroolkan iyo qofku inuu qof ku dhego oo maarmi waayo oo jilicsanaan badan uu dareemo, waxay ka imaanaysaa waa caruurnimadaadii hore. dib ugu laabo. midda kale intaa u dheeri wax kalsooniya ma qaban, waa waxa bisad iyo jiir ay isugu noqdaan dad badani markay isguursadaan, oo qofba qofka kale uu intaa u raadinayo. oo waxaa laga yaabaa ninku inuu gabadha telefoonkeeda intaa jeeg garanayay, wacday, wuxuu qortay, maxay talo samaysay. gabadhuna sidoo kale ninku markuu jiirsaday telefoonkiisa raadinaysa. haddii passwordka uu ka bedelo, subaxii quraaci ma jirto, qaylo iyo muran, maxaad passwordkaaga u bedeshay, yaad iga qarinaysa, gurigu ma degayo, ma laladayo, reerkaasu ha sugin inuu dego. marka labadaa qof waxa ay dhibaatada ugu weyni ka haysataa waa yaraantoodii, waa wixii ay soo barteen, waa wixii caadada iyo dhaqanka u soo ahaa sannadaha badan. dad badanoo waxaa jira marka ma fahmaan qofkan dhibaatadu meeshay ka haysato, laakiin qof walboo maanta dhaqankaa kugula dhaqmaya, bal waxaad u fiirsataa noloshiisii hore uu ku soo koray. dabcan wuu kaaga sheekaynaya qofku noloshii hore uu soo maray iyo siday ahayd, xaaladihiisa kala duwan, dadku badi way isaga warramaan. waad ogaan karaysaa markaad aragtid marka qofkan mushkiladdu meeshay ka haysataa in ay tahay mushkilad ka timid yaraantiisii. isku day inaad u naxariisato, isku day inaad fahansiiso, isku day in aad dareensiiso meesha nabarku uu kaga yaallo. markaad wax walbo caddayna qofkii tusto oo haddana aad aragto inuusan weli qancaynin, macnaha mararka qaarkood waxaa laga yaabaa telefoonkaaga maxaad u qarisaa, maxaa telefoonkuugu jira, maxaad hadda samaynaysa, hoo waa kan. qofkii waa fiiriyey telefoonka waxba kuma jiraan. markuu markaa eber soo istaagay, marka ku xigta eber soo istaagay, marka afaraad, shanaad, lixaad eber uu soo istaagay. weliba gaar ahaan markaad reer leedahay baan ka hadlaya, kama hadlaya markaad qofka isla socotaan. waayo waxaan idhahdaa markaa qof isla socotaan, macna darrada intaa la eg, wakhtiga intaa la eg inaan qof ku lumiyo inaan qanciyo, waajibka isaarani maxay tahay. laakiin markii reer ay tahay arrintu, waxbaa la xeeriyaa, waxbaa la qadariyaa, xoogaa waa laga daba yaro laalaabtaa arrinta, laguma degdego. laakiin markay tahay qof aad isla socotaan, yuusan madaxa kaawaalin. qofkaa waxaa ku filan haddii 2 jeer 3 jeer aad qancisiintaa ka badan, waa khalad waxaad wakhtigaaga ugu lumisid. waayo qofkaasu badi way adag tahay. waa laga yaabaa inuusan noloshiisii hore qofku kaaga sheekayn, laakiin hadduu kaaga sheekeeyey, isku day inaad fahansiiso mushkiladda haysataa qofkan inaysan adiga ahayn ay isaga tahay. weliba marka ay reer tahay dhankeeda, in qofkan saan kuula dhaqmaya, noloshiisa markaad aragtid arxan darradu ku soo koray, naxariis u muuji adigu, oo waxaa tustaa mushkiladdu meeshay ka timid. weliba adigoo si cad aan qofka u tusaynoo dee lahayn halkaasay mushkiladdu ka haysatay, hadalka aan iskaga tuurayn. waayo qofkani dhaawaca uu dareemayo iyo qalbigiisa meesha faaruqa iyo waxa uu tabanayo, hadal hal mar aad ku tuurtay dabka markaa shidan uunbaa sii kordhinaysa.
wax kale dabkaa shidan holacaas haddaad u jeedid uma shidaal ku dartay wax kale ma samayn dabkaa marka shidan si uu u damo inta badan waqtiyada xaaladuhu ay degan yihiin baa la isku dayaa qofka in la educate garay in wax la baro wax loo sheego loo caqli celiyo la dareensiiyo kalsoonidaasu si ay u timaado haddii de dabcan markay sanad 2 3 qofkii aad saa ku wadid dee markaa qof walba isaga xor ah wuxuu samaynayo anigu qofna kulama talinayo gurigaaga iska dumi qofna kulama talinayo war gabadha tani maxay ahayd war iska fur kuma oranayo hadalka dadka social media maanta igala soo xiriira inta badan dee waxyaabaha qoyska ku saabsan idinma keeno laakiin dadka social media igala xiriira oo mararka qaarkood afaaraha qoyskooda iyo dhibaatada ka jirta ii keena ee aan talada siiyo way og yihiin xataa iyagoo ku indha adag inay gurigaa dumiyaan baa idhahdaa maya ka daa ma idhaahdo dumi sababtu maxaa weeyaan aakhiro iyo qiyaaman adduunka u soconnaa adduunyadu waa laba beri waa ka tegaynaa maalinka laga tago hadalkaygan caawa aan ku hadlayo iyo videogan aan duubayo qiyaamaa laygala xisaabtami doonaa marka noloshaada markaad aragto qofku inuu dhaqanka sidaasa leeyahay u naxariiso oo u tur oo culays badan baa saarana isku day bal culayska inaad ka qaado inaad wax fahansiiso bal intii macquula inaad isku daydo ragga qaar ba heer waxay la gaartaa gabadha u qabaa inuu masaajidka ilaahay iyo beydka cibaadada xataa inuu imaan waayo wax kalena mahana waa kalsooni xumada iyo gurigiisa dacdarada ku haysata waxaa laga yaabaa gurigiisa dhaqan xumo in gabadha uusan wanaag iyo kalgacal iyo uusan ka arkayn qalayf waa adag tahay waa amar socdo oo kakan marmarka qaarkoodna ninku sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu nin qallafsan yahay waa maruu siyaasad ka hadlayo waa maruu Facebook uu sidii dee balwad buu noqday maanta sida sigaarka iyo qaadku ka daran yahay uu waqtiga ku luminayo uusan xataa attention siinayn gabadha guriga la joogta ma qof baa kula jooga guriga ma nin kaloo iskaabulaabaad isla degan tihiin ma derbiyada unbaad dhex joogtaa aan la kala aqoonba dhaqanka qofkani uu ku dhaqmayo badina waxa guryaha dumiye ee dadka sii kala fogeeya wax kale ma ahan waxa kala fogeeya waa in labadii qof tusaale ahaan gurigay wada joogaan laakiin waxaad moodaa gurigu inuu faaruq yahay gurigu qabow badana naxariis ma jirto hadalka waa la isku tuurtuuri qof walbaaba qofka kale waxaad moodaa qasab inuu ku leeyahay cuntada maxaad u karin weyday oo dharka maxaad u dhaqan weyday oo guriga maxaad u hagaajin weyday iyadu waxay leedahay maxaa waxa u sameyn weyday oo maxaa ka igu yeeli weyday oo maxaad romantic igu noqon weyday oo fartaa la isku taagtaagaya waa labadii shalay la kala celin waayey waa gabadhii hooyadeed iyo aabaheed iyagoo leh naakani ninkuu noqon maya ka joogi weyday waa ninkii lalahaa war gabadhan caariyada ah ee qaawan ee sidan u taalla hadhow gabadhay kuu dhalaysay reerka aad la dhisan doontaan noocuu noqon doona la kari waayey 45,000 50,000 60,000 baa laga yaabaa marmarka qaarkood in xataa aroosyada qaarkood ay ku baxdo arooska intaa lagu bixiyey ee kharasha intii la wada socday iyo inta la wada joogo marka la fiiriyo inta la wada joogay baa aad u gaaban maxaa dhacay maxaa khaldan ma arooska mushkiladu ka taagneed ma kharashka dhibku ka taagnaa waa maya ma wiilkii gabadha isu fool xumaaday waa maya waa dhaqanka wax kale maahan labadii qof ee shalay la kala kari waayey guri markay isla soo galaan iyaga adduunka kuwa isugu xun oo isugu necab noqonaya wax kalena ma keenayaan waa qof walbaaba qofka kale siduu ula dhaqmayo badi markaad aragtid naftaadu in bal is-eeg adigu maanta naftaada haddaad tahay dadka masayrka badan ee kulul ee maanta dhan inay wax kontroolaan sidiisa maahana si kale in wax loo wada aysan jirin haddaad tahay naftaada maanta isdultaag qofkaa nolosha aad la wadaagtidna haddii 2 sano 3 sano aad saa ku soo waday qof wanaagsan baad nolosha la wadaagtaa qof aad u dulqaad badan baad nolosha la wadaagtaa marmarka qaarkood bay dhacdaa xataa ninku qurbahan baa lagu arkaa nin ku leh xaaskayga niyow haddaan magaalada joogo ama magaalada ka shaqeeyo niyow gurigu ma dhisnaanayo waa dumaya dantu maxay ku kaliftay inuu ama taraag koro ama inuu meelo fogfog ka shaqeeyo hadda reer buu leeyahay wuu rabaa reerkiisa iyo gurigiisa laakiin wuxuu ku leeyahay niyow reerku inuu dumo ayaan ka baqayaa marka inaan intaas maqnaado muddo intaan maqnaado mar imaado oo aan wax yar inta joogo haddana carro reerka deganaantiisa ku jirto ku leeyahay waxaasuma nolol baa marka ma ahan haddii si loo fiiriyo nolol lama oran karo waayo qofkaasu ciriir badan buu dareemaya waa ina sahlantahoo dhowdahay inta ninkaasu uu gabar kale la guursanayo waayo dhibaatadu xaggee ka timid gurigiisa deganaan la'aanta ka jirtaa keenaysa haddii gabadhu ay ninka ku taagantahay ama ninku gabadha uu ku taagan yahay gurigaasu wax badan ma sii taagnaanayo waa la iska hor imaanaya dadka adduunka isugu necab baadna noqonaysaan laba cadow oo isgarab jiifaad noqonaysaan waa isgarab hurudaan adduunkaadna isugu necab tihiin markii hore la idinkala reebi waa
habeenka ugu horeysa isguursateen hoostaad iskaga jirteen sax laakiin bal guryaha aad ugu fiirsa dhaqankooda maanta qof baa guriga soo galaya labada mid kamid ah banaanka ku maqnaa markuu guriga soo galo assalaamu calaykum xataa ma oranay haye iyo warasee time fiicanta halkaas iska maraya qofkii gurigu iska galaya dharku iska bedelanay sariirtu iska tagi TikTok social media waxaan qashinkee dadku maanta ku ibtilaysan yahay lagu imtixaamay buu iska galaya qofba inuu guriga la joogo laba qof oo guri wada joogta oo haddana kala fog adduunkan maanta inuu joogno in badan baa marka laga arkaa wax kalena ma keen qof walbaaba qofka kale dabeecadiisu iska ilaalinaya ma kaftami karaan hadal yaroo kaftama haddii gabadha ninku ku yiraahdo ama gabadhu ay ninka ku tiraahdo dagaal baa ka kacaya maxaad hadalka ay tiri malaha nin kalaad rabtaa malaha nin kalaad soo aragtay waxaad u leedahay sidaa maxaad ugu egtahay gabadhu sidoo kale manaa kalaad daawataa manaa kalaad soo aragtay maxaa sida dadkaasu inta badan nolosha kuma degaan dhibaatadu meeshay ka haysatana waa masaakiina ma oge waa yaraantoodii wixii ka soo raacay baa halkan ku haysta waxaan maqli jiray waawgii alifka kaaga khaldama baqaruu kugu qabsaaso Soomaali ma oran jiro qofku wixii yaraantiisa dhaqan iyo caado u soo ahaa buu wuxuu la yimaadaa isagoo moodaya caadi inay tahay laga yaabo xaaladaha qaar inuusan ogeyn qofku hadduusan wax ogeyn qof isdhul dhig badanna uu yahay diyaarna u yahay inuu wax barto waxa markii hore uu aaminsanaa ee khaldanaana qofku uu diyaar u yahay inuu ka leexdo oo uu aaminaada hore iyo wixii naftiisa ay la ahayd inuu maanta isbedel ku samayn karo haddii qofka agtiisa sahlan tahay gurigaas waa degaya dadku waa isfahmayaan noloshu waa wacnaanaysa raaxa lagu wada noolaanaya malihii dhib la'aan bay noqonaysaa nolol aan dhib lahayn ma jirto qof kastoo maanta guur u sii tafaxaydan wuxuu aaminsan yahay qofka uu guursanayo in uu wax walba ka keensan karo ma isku diidanahay gabadhay dhegaysanaysa maanta adiga hadday dhegaysanaya gabadha waxa laga yaabaa inaad weli single tahay waxaad aaminsan tahay ninkii inaad wax walba ka keensan karto wiilka dhegaysanaya waxa laga yaabaa inuu aaminsan yahay wuxuu waa dumaro gabadha wax walbaad ka keensan kartaa base hadhow marka aynu guurka iyo bashbashta iyo barwaaqada hore marka laga baxo ba waxaad dareemaysaa in taree bacaad ku jira inaad riixay sidoo kale ciriir badan war qofkan maxaa ka khaldan maxaa si ah war noloshiiba ciriir baan galay war mugdigare muxuu ahaa gurigaaga markaad u soo socotid tartiib baad u soo socon markaad ka baxaysidna sidii sawaariq la ridayo kalaad ka baxaysaa guriga orod baad kaga baxaysaa guriga waxa kuu taagan shaqo laakiin shaqada wax kala kaaga daran gurigaaga xataa kuma degaysid markaad qof dhaqankan leh aad hood is og tahay ilaahay adoonka aad nolosha la wadaagtid uga baq naftaadana ihsaan u samee kulaylkan iyo dhiikarkan iyo waxaan aad isa saaraysid iyo culayskanna iska khafiif iyo tartiib u soco waxani waa adduunyo dhamaantiin maanta podcastigan intaas ayaan jeclaystay inaan kula wadaago intaynu dib dambe ugu kulmayno qaybta labaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh